Yo guys, waan salaamay dhamaantiinaba meel walba caalamka joogtaan. Waa walaalkiin Yamin Xasan ah. Idin leeyahay kusoo dhawaada mar kale iyo YouTube channel-kayga. Haddaad ku cusub tahay waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saartid, aadan ka hilmaamin inaad taabatid gambaleelka saad ula socotid muuqaalada soo socda. Muuqaalkayga maanta intaan u gudagelin waxaan jeclaystay inaan cafis weydiisto gabdhaha hadda i daawanaya. Waxaan ilaahay ka barinayaa inuu dulqaad siiyo si ugu dhageystaan, waayo muuqaalkan ayaga ayaan ku duqeyn rabaa maanta. Haddaad isku aragtid waxyaalahan aan rabo inaan idin sheego mid ka mid ah, noqo mid iska reeba waxyaalahaas. Waxaa jiray wiil gurdoon ah, markaas wuxuu u tagay awowihiisii. Wuxuu dhahay, awowe waxaan rabaa inaan guursado, waxaad ii sheegtaa gabarta u habboon in la guursado. Markaas awowihii wuxuu dhahay, waxaan kuu sheegayaa 3 aanan habbooneyn in aad guursatid. Kow, gabarta Ildheer. Gabarta Ildheer waa midda ka warheysa xaafadda alaab walbo cusub la keena, ama saaxiibadeeda alaab cusub ee soo dhigata, amaba jiraanka alaab cusub ee soo dhigtaan. Wax walbo kusoo kordha xaafadaas waa mid ka warheysa. Taas kuma ekaanayso, balse markay aragto alaab cusub waa mid rabta ayadana in loo sameeyo ama loo dhigo alaabtaas. Marka midda camal ka dheeraaw ha guursanin, waayo waa midda ka hor istaagaysa horumarkaaga, waayo mar walbo waxay ka talinaysaa khasaarahaaga. Middaas ka fogow. Midda labaad waa midda dheg dheer ah. Ayada dhegteeda xaafad oo idil ayay u taagaysaa, way dhegeysanaysaa, aanan ka ahayn ninkeeda. Haddana taas waxaa ugu xun, wax walbo ninkeeda laga sheego oo xun ah waa mid qaadata. Taas amalna ayadana ka dheerow, waayo waxay burburinaysaa reerkaaga. Midda saddexaadna waa mid carab dheer ah. Middaas ayadana waa mid dadka oo idil carabkeeda aan ka nabadgelin, waa mid xan badan ah. Haddana waxa ugu xun markaad shaqada aad ka imaadid ama guriga aad imaadid, waa meeshii la rabo inay ku soo dhaweyso si wanaagsan ah, waxay kugu bilaabaysaa hadal aanan loo joogin ama qeeli ah. Maxaa saas u jirtay, intaa jirtay, maxaa sameysay, maxaa saa u sameysay, sida kida. Yacni waxyaalo aanan loo joogin waqtigaas ayay keenaysaa. Ma ahan hal mar, laakiin mar walbo waxay kula imaanaysaa war aanan jirin. Ayadana taas ka fogow, waayo adiga ayay stress kugu dilaysaa. Marka haddaad isku aragtid 3dan mid ka mid ah, iska ilaali oo iska dhaaf, waayo ma ahan wax fiican. Muuqaalkayga maanta halkan ayaan ku ekaan doonaa. Inta aan ku wada kulmi doono muuqaal kale oo sidaan ah, waxaa idinka tagayaa sida iyo nabadgelyo.